si uu u badbaadiya nolosha saaxiibkiis xaaskiisa ayuu Raajuu wuxuu ag fadhiistay qalfoofka asagoo iska dhigayo qof dumar ah. Isla markii uu ka qaaday maradii wejiga u saarneed qalfoofkii yaab ayuu la istaagay. Wuxuuna dhahay, waryaa inta maxaa ka samaynaysaa? Sidee ugu dhiirateen dadkiinan tuulada inay qayaantaan? Waryaa carar qalfoofkan wuu waashay. Alla waa dhintay aan ordo. Alla maxaa aniga igu dhagan. Isla markii wuxuu ka soo baxay godkii asaga oo ordaayo. Wuxuu si toos ugu cararayna xaafadiisa. Yaa waayo qofkaani? Waxaan u malaynayaa waa Raajuu. Waxaan u malaynayno inuu jinnigii qaatay dumaashi Siimaa asaga. Waxaad samaysay shaqo geesinimo leh oo aad ku matashay dumaashi Siimaa. Isla markiiba Raajuu wuxuu u cararay gurigiisa. Haye walaal Raajuu, waa soo badbaaday. Allah ayaa mahad iska leh. Waxaadna soo noqotay adigoo nabad qaba. Maya walaal Goobi, wax walba way burbureen. Waxaan u malaynayay inaan u tagayo qalfoofka anigoo iska dhigayo dumaashi Siimaa. Waxaan rabay inaan ka jaro qoorta jirkiisa isagoo hurdo, laakiinse dagaalyahankaas muusan ii dulqaadanin oo wuxuu iga qaaday xijaabkii. Khiyaanadeydii oo dhan halkaas ayay ku burburtay. Walaal halkaan ma joogi karna sideedaba. Qalfoofkaas wuu waashay. Hadda halkaan ayuu imaanayaa asaga oo raadinaya dumaashi xaqiiqda. Hadda waa inaan halkaan isaga tagnaa. Dadka tuuladooy ma fiicneen in aniga lay qayaano, laakiinse hadda qof dumar ah nolol kuma deynayo. Nimankiinana aniga camal ayaa noqonaysaan. Aniga waa dhintay. Waxaan maqlayaa codkii qalfoofka. Waxaan u malaynayaa inuu xaafadda imaaday mar kale. Hayaay, marka ugu horreysa aniga ayuu igaarsanayaa. Dhaqsada halkaan aan ka tagnee. Markiiba afartoodii gurigii ayay ka carareen ayaga oo ka tagaya halkaasi. Dhinaca kale, qalfoofkii wuxuu la waashay xanaaq isagoo isku dayayo inuu jabiyo guryaha dadka albaabadooda. Adigaan doqonka aawe xaaskaagii bannaanka u soo bixi. Xaq uma laha inay sii noolaato. Adiga iyo dadka xaafadda waa inaad silicdaan sida aan aniga keligayga u silcay. Walaal qalfoofow, aniga xitaa waxaan ahay adigoo kale. Waxaan la dhibanahay guur la'aan. Xaafaddaana ma joogto gabar aan la qabin. Waxaan jeclahay wiil yar. Xaafaddaana gabar ma joogto. Qalfoofow, waxaan nahay walaalo. Sidaa adi u dhiban tahay ayaan anigana ugu gubanayaa dabkaasi. Qalfoofow, aniga i wado. Halkaan isiga tag. Soco iga tag. Adiga wax micno aha aniga iiguma fadhidid. Iga tag, haddii kale ceyriinka ayaan kugu cunayaa. Qalfoofow, iga raali ahow. Dhinaca kale, afartii waxay u carareen duurka ayaga oo ka soo tagaya guryahooda. Walaal Raajuu, waxaan u malaynayaa inaysan wax faa'iido ah noo lahayn orodka noocaani ah. Waxaan u malaynayaa qalfoofkaasi inuu gaaro guryaheena asaga oo raacayo carafta Siimaa sidii hore. Meel walba oo aan aadno wuuna soo gaarayaa asaga oo soo urinaya iyada. Waxaan u baahannahay inaan ka fakirno qayaano aan asaga kaga taqluusno. Markaas kadib nin tuulada oo ordayo ayaa soo gaaray ayaga. Waryaada maxaa idinku dhacay? Maxay tahay sababta aad sidaan ula cabsanaysaan? Miyuuna imaanin qalfoofkii xaafadda? Waad saxsan tahay walaal Raajuu. Asagoo dagaashan qalfoofkii wuxuu imaaday gurigayga wuxuuna jabiyay albaabadii. Wuxuu raadis ku bilaabay xaaskayga, laakiinse waxaa mahad iskale Ilaahay aniga weli maba guursaninba.
walaal qolfoofkaasi hadda wuu waashay, wuxuuna daba joogaa dumarka oo dhan. Waxa keliya oo noo sheegi kara waa wadaadka wax fiiriyo si aan asaga uga taqluusno. Aniga waxaan aadayaa wadaadka, dhammaantiinna haddaad rabtaan waad isoo raaci kartaan. Dhammaantoodna waxay aadeen wadaadkii, waxayna u sharaxeen wax walbo. Fiiri, adiga ayaa soo kiciyey shaydaanka, laakiin sheekh islaantiisa waxay ku duugan tahay duurka. Haddii aad ila kulansiisaan islaantiisa, isagana wuu degayaa. Laakiin sheekhow, halkee baan ka raadinaa xaaskiisa? Waxaad ka helaysaan qolfoofka xaaskiisa ceelkii uu asaga ku dugnaa. Waxaad u baahan tihiin inaad halkaad ka soo saartaan iyada, markaas oo keliya ayuu shaydaanka degayaa. Markiiba kulligood way ka soo tageen meesha, waxayna si toos u gaareen meel u dhow ceelka. Waxay bilaabeen inay qodaan meeshii. Markay gaareen kadib, way la yaabeen markay arkeen gacan qalfoof. Waxay arkeen gacan qalfoof ah. Walaal Raaju, fiiri, waxay u eg tahay gacantii qalfoofka xaaskiisa. Aan sii qodno. Waxay zaid u sii qodeen godkii, waxayna halkaas ka heleen qalfoofka xaaskiisa. Way ka cabsadeen qalfoofkaani. Walaal Goobi, hadduusan noqonin qalfoofkii xaaskiisa, nooma deynayaan nolosheena. Boqorkaygiyow, waa wax fiican inaad bannaanka ii soo saartid. Meeqaa sane ayaan halkan ku duugnaa. Nolosheena aan isla wada qaadanno wixii hadda ka dambeeya. Aniga waa dhintay. Walaal Goobi, waxay ii malaynaysaa iyada inaan aniga ahay boqorkeeda. Walaal, aniga ma fiicni. Waxaan dareemayaa iyada gariirkeeda. Dhinaca kale, qalfoofkii dagaashanaa wuxuu raadinayaa islaan, inkastoo uu xaas leeyahay. Ayadana halkan waxay raadinaysaa boqorkeeda. Wax walbana waxay iila muuqdaan wax culus. Walaalay iska kaydaa. Halkan waxaan u nimaanay inaan kula kulansiino xaajigaaga. Adigana waxaad ku jirtay qabri. Asagana wuxuu ceersanayaa xaasaskeena. Fadlan isaga naga qabo. Maxaad dhahday? Miyuu soo kacay isaga? Marka ugu horreysa ii gee. Kulligood waxay soo aadeen dhankii xaafadda. Wax yar kadibna way soo gaareen xaafadda. Halkaasna qalfoofkii wuxuu jabinaya qof albaabkiisa. Wuxuuna dhahaye, hey, fura albaabka. Haddii kale waan soo jabinayaa. Fura albaabka. Maanta ma dhaafayo xaaskaaga. Aniga ayaa qaadanayo iyada. Albaabka fur. Markay aragtay waxaan, xaaskiisa aad ayay u xanaaqday. Fiiri walaashay, indhahaaga ku arag waxa uu xaajigaaga sameynayo. Wuxuu raacayaa islaamaha xaafadda si xun. Waad i burburisay. Maxaad sameynaysaa? Waxaad bilowday inaad i tusto wajiyadaada runta ah isla markii aan dhintayba. U kaadi, isla hadda ayaan ku bari doonaa. Halkee bay ka timid iyada? Allah, waan dhintay. Hadda ima badbaadinaysa iyada. Qaaliyey, halkee baad ka timid? Intee in la eg ayaan ku raadinaye? Way fiican tahay haddaad timid. Waad dagaalamaysaa. Maxaad u garaacaysaa albaabkiisa? Sheeg waxaad u daba joogta xaaskiisa. Qaaliyey, waxaan halkan u imaaday adiga ayaan ku raadinaye. Dad ayaa ii sheegay dadkan xaafadda inay halkan kugu soo xirteen. Waxaan halkan u imid inaan adiga ku badbaadiyo. Marka dagaalyahanow, maxaad u leedahay xaaskaaga bannaanka iigu soo bixi? Ii sheeg. Alla qaaliyey, waxa keliya aan u imaaday
inaan ka qaato dadkan xaafadda degan faraantigaygii ay iga soo xadeen. Dib u qaado qalfoofo faraantigaaga, annaga uma baahnin faraantigaaga. Fadlan qaado faraantigaaga xaafadeennana nooga tag. Markiiba qalfoofkii wuxuu ka qaatay faraantiga, labadoodiina waxay ku noqdeen ceelkoodii mar labaad. Intaas ayay ku dhammaatay sheekadeena asxaabta. Bye bye.